daawadayaal ku soo dhawaada qaar ka mid ah wararka ugu waaweyn ee caalamka xilligan. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in shirkii Midowga Yurub aan laga aqbalin dalabaadka qaar ka mid ah wadamada Midowga Yurub maxaa yeelay dalabkoodu ma ahayn kuwa xaq ah. wuxuuna ku tilmaamay in wadamada xikmadda u saaxiibka ah ee ku jira Midowga Yurub ay sortaageen shirqoolkii iyagoo qaatay mowqif wanaagsan. Erdogan wuxuu ku adkaystay in shir madaxeedka Midowga Yurub ee dhici doona bisha Maarso ee sanadka soo aadan aysan suuragal ahayn in laga soo saaro wax lid ku ah dalkiisa sababtoo ah Turkigu waa mid ku taagan jidka xaqa ah. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu madaxweynuhu sheegay in hogaamiyayaasha Yurub iyo Mareykanka ay tahay inay raacaan siyaasadaha ujeedka togan leh isla markaana uusan xalku ku jirin mashaakilka taa bedelkeedana xalka laga raadiyo wadaxaajoodyada cunaqabatayntana aysan wax u dhimi doonin Turkiga oo kaliya laakiin sidoo kale dhammaan dhinacyadu aysan mahadin doonin. isagoo ka hadlayay falcelinta Turkiga laga filan karayo madaxweyne Rajab wuxuu sheegay in Turkigu aanu qaadi doonin wax tallaabo ah oo wax u dhameeyo cilaaqaadka uu la leeyahay Yurub ama Mareykanka isagoo ugu baaqay labada dhinacba inay ka tanaasulaan ololayaasha ka dhanka ah Turkiga. Mr. Erdogan mar uu ka hadlayay cunaqabateennada Mareykanka ee dalkiisa wajahayo wuxuu ka soo qaaday inay cunaqabataynta Mareykanka ay tahay mid lagu suurad xumeynayo dal xulafo kula ah Mareykanka gaashaanbuurta NATO. dhankeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa iska fogeysay cunaqabataynta Midowga Yurub waxayna ku tilmaantay mid iyo sharci darro ah. Mr. Erdogan wuxuu ku sifeeyay in Washington ay Turkiga u adeegsato qaanuunka sifaynta cadawga Mareykanka iyadoo loo marayo cunaqabateennada ee loo yaqaan Katsa uu meel ka dhac ku yahay saaxiib muhiim ah oo Mareykanka kala tirsan gaashaanbuurta North Atlantic Treaty Organization NATO. waxaan arki doonaa isbedelada cusub ee Mareykanka kadib wareejinta xukunka ee maamulka Trump iyo la wareegista taliska Joe Biden ayuu raaciyay Erdogan. shabakadda Bloomberg ayaa warinaysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxiixay wadar cunaqabatayn ka dhan ah Turkiga iyadoo soo xiganaysa ila ka agdhow aqalka cad. website-ka ayaa cadeeyay in cunaqabataynta ay timid kadib markii xukuumadda Ankara ay sanadkii hore soo iibsatay nidaamka difaaca gantaalaha Raashiyaanka ah ee S-400. inkasta oo barta Bloomberg ay tilmaantay in cunaqabatayntan uu isku dibriday xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Mark Pompeo aanan la garan karin nooca ay tahay balse wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo warisay in cunaqabataynta Mareykanka ay beegsanayso maamulka warshadaha soo saarista agabka difaaca ee Turkiga oo ugu horeeya madaxa mu'assasada farsamaynta agabka military ee Turkiga ee Ismaaciil Demir. Reuters ayaa sheegaysa in sarkaal sare oo Turki ah uu u sheegay in dalkiisu uu doonayo inuu xalliyo khilaafka kala dhaxeeya Washington ee heshiiska nidaamka S-400 laakiin Turkigu uusan aqbali doonin tillaabooyinka halka dhinac ah. sarkaalka Turkiga wuxuu ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta. sarkaalkan Turkiga ah ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalan doonta cunaqabataynta soo socota wuxuuna tibaaxay in ay saameyn doonto xiriirka labada dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. dhanka Midowga Yurub madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo dhaweeyay jimcihii muujinta Midowga Yurub ee waxa uu ku tilmaamay go'aanka adag ee ku wajahan Turkiga kadib markii Midowgu go'aansaday inay cunaqabatayn saaraan Ankara kadib ficilada Turkigu ka wada badda Mediterranean-ka. Macron oo la hadlayay saxaafadda kadib dhamaadkii shirkii Midowga Yurub ee Brussels ayaa yiri waxaan siinay Turkiga fursad bishii Oktoobar laakiin waxaan si wada jir ah isku tusinay in Turkigu uu wali sii wado howlihiisa daandaansiga ah. Macron ayaa si ku celceliyay in Midowga Yurub uu wali diyaar u yahay wada hadal uu la yeesho Turkiga. dhinaceeda hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa tiri waxaan go'aansanay inaan kordhino cunaqabataynta saaran Turkiga laakiin waxaan doonaynaa wada hadal wanaagsan oo wax ku ool ah oo aan la yeelano Ankara. Michel Charles oo ah madaxweynaha golaha Yurub ayaa carabka ku adkeeyay in dooda ku saabsan xaaladda bariga Mediterranean-ka ay ahayd mid adag isla markaana ay tahay in la qaado tallaabooyinka loo baahan yahay muddadan dhexe. iyadoo ka jawaabaysa go'aanka Yurub wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxay ku tiri bayaan ay soo saartay in Midowga Yurub uu galay marxalad firaaq diblomaasiyadeed ah sababo la xiriira siyaasadaha xaniban ee wadamada qaar. waxayna wasaaraddu sheegtay inay diidan yihiin mowqifka eexda iyo sharci darrada ah waa sidii hadalka u dhigtay ee laga soo saaray shirkii Midowga Yurub ee 10kii bishan. hadalkan ayaa imaanaya kadib markii hogaamiyayaasha Midowga Yurub ay isku raaceen in la diyaariyo cunaqabateenno xadidan oo la saarayo shakhsiyaad ka soo jeeda Turkiga ee la xiriirinayo khilaafka saaminta tamarta ee kala dhaxeeya Greega iyo Qubrus. hogaamiyayaashan ayaa sidoo kale isku raacay in dib loo dhigo tallaabooyinka adag tan iyo bisha Maarso ee sanadka soo socda iyadoo la tixgelinayo kala duwanaanshiyaha aragtiyada dalalka Midowga ee ku aadan sida loola dhaqmayo xukuumadda Ankara. hogaamiyayaasha Midowga Yurub ayaa ka baaqsaday hirgelinta hanjabaadii ay soo saareen 2 bilood ka hor si ay uga fiirsadaan qaadashada tillaabooyin ballaaran iyo xayiraado dhaqaale oo Turkiga ka dhan ah
tallaabooyinkan ayaan si gaarin heerkii ay doonayeen Giriigga iyo Faransiiska iyadoo dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga iyo Spain ay doonayaan sidii diblomaasiyadda loo siin lahaa waqti dheeri ah. hogaamiyayaashu waxay ugu baaqeen guddiga Yurub iyo wakiilka amniga iyo siyaasadda dibadda ee midowga in ay shirmadaxeedka Yurub ee la qorsheeyay bisha Maarso ee sanadka soo socda ay soo daabacaan warbixin ku saabsan xiriirka siyaasadeed, dhaqaale iyo ganacsi ee u dhaxeeya Turkiga iyo midowga Yurub iyo xulashooyinka suuragalka ah ee ku saabsan sidii tallaabo hore loogu qaadi lahaa oo ay ku jirto ballaarinta cunaqabateennada. weli wararka xiisadda midowga Yurub iyo Turkiga ayaan ku guda jirnaayay shirkii Brussels ee toddobaadkan. hogaamiyayaasha midowga Yurub waxay ogolaadeen in laga shaqeeyo sidii loo ballaarin lahaa liiska madow oo ay hadda ku jiraan 2 shaqaale oo ka tirsan shirkadda batroolka ee Turkiga. ayaan uu soo saaray midowga ayaa carabka ku adkeeyay suurtagalnimada in la bartilmaameedsado shakhsiyaad badan lagana yaabo in qaar ka mid ah shirkadaha iyo ururada dawliga ah ay ku jiraan liiska cunaqabateynta waa haddii Ankara ay sii wado baaritaanada ay ka wado badda Mediterranean-ka. sidoo kale midowga uu xil iska saaraya ilaalinta xasiloonida gobolka. dhanka kale taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa baahiyay muuqaal laga duubay 2 diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee nuuca B-52 oo ay garba duulayaan 4 diyaaradaha dagaalyahanka boqortooyada Sacuudiga oo ah nuuca F-15 oo uu Mareykanku farsameeyo. diyaaradahan ayaana ilaale ka hayay 2 diyaaradood ee B-52 ah oo ku sii jeeday mandaqada Khaliijka. diyaaradan B-52 Stratofortress ayaa ah diyuurad qaada duqeymaha istiraatiijiga ah ee masaafooyinka fogfog. ganatadan ayaa waxaa adeegsanayay ciidamada cirka ee Mareykanka tan iyo 1954 waxayna bedel fiican u noqotay noocyadii ka horeeyay ee B-36 iyo B-47 waxaana la farsameeyay intii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay midowga Soviet iyo Mareykanka. diyaaradan ayaa awood u leh inay qaado oo ay ku garaacdo bartilmaameedyada cadawga 32,000 oo kiilogaraam oo bombooyinka qarxa iyo gantaalada casriga ah isugu jira. 2 diyaaradood ee duqeymaha istiraatiijiga Ameerikaanka ayaa dul maray gacanka Bershiya. ujeedkooduna wuxuu ahaa in laga hortago Iiraan iyo wakiiladeeda inay fuliyaan weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe. duulimaadyada 2 diyaaradood ayaa qaatay qiyaastii 36 saacadood oo safar iyo gaafureeg ah iyagoo ka soo kictimay garoonka diyaaradaha ee Braxdale ee gobolka Louisiana ee Mareykanka. markii ugu dambeysay ee Mareykanku diyaaradahan u diro gobolka waxay ahayd xagaagii hore kadib dilkii taliyay ciidamadii gaarka ahaa ee Qudus ee qaybta ka ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. waxaa xusid mudan in diyaaradaha istiraatiijiga ah oo loo diro bariga dhexe ay ku soo beegantay toddobaadyo kadib booqashada xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku maray wadamada gobolka intii uu ku sugnaa Israel. Mr. Pompeo ayaa waraysi uu siiyay The Jerusalem Post wuxuu ku sheegay in Mareykanku uu weli darsayo fursado kala duwan oo lagu cadaadinayo Iiraan marka lagu daro cunaqabateennada. wuxuuna carabka ku adkeeyay inaysan jirin wax isbedel ah oo maanta iyo biriba iman karaya. waqti aan sidaas u sii fogeen New York Times ayaa soo warisay iyagoo soo xiganaya ilo xog ogaal ah in Donald Trump uu kala hadlay la taliyayaashiisa suurtagalnimada in la weeraro xarumaha nuclear-ka Iiraan laakiin waxay ku qanciyeen in weeraro toos ah aysan habboonayn xilligan maxaa yeelay weerarka waxaa laga yaabaa inuu isku bedelo dagaal ballaaran oo gobolka ah. si kastaba ha noqotee wargeysku wuxuu xusay in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ay markii dambe saraakiil ka tirsan CIA ku qanciyeen in iyadoo la garabsanayo hay'adda Mossad la fuliyo howlgal qarsoodi ah oo lagu qaarijinayo sargaalka hormuudka u ahaa bacriminta uranium-ta Iiraan ee lagu magacaabi jiray Muhsin Fakhrizadeh ee la khaarijiyay dabayaaqadii bishii hore. khabiirka golaha Ruushka ee amniga caalamiga ah Ilya Kremnik ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee Washington ay diyaaradda duqeymaha culculus ee B-52 ugu dirayso gobolka ay tahay cabsigelinta Iiraan.